jaamac waxaan ahay bukaan ku caafimaday dawooyinka halkan yaal qayb kamida waxa weeye waxaan mahad celinayaa dadkii noo keenay dawooyinkan aniga gaar ahaan waxaan mahad celinayaa gabadha meeshaan keentay anoo wax ka hayn kayf maxaad faaraxda la dhahaa khayr ilaahay ha siiyo anoo xanuunsan baa halkan la keenay dhakhtar baa la ii keenay iskaan baa la saaray dhiig baa la iga qaaday waxa la igu sheegay xanuuno kaliya dhexda dhagax iga jiro tayroon inta iga jidda low leega hayay xanuun la iga sheegay waxa kale oo la igu sheegay gaas alxamdulillah rabbil caalamiin dawooyin baa la ii qoray dawadan ka mid tahay sinkida la yiraahdo caleen dawada la yiraahdo kamida tijson dawada la yiraahdo halkan ka muuqata kamida dawada todobari markaan qaadanayay ilaahay wuxuu halkaas inta la iga qabto wuxuu iga jeexay wax milil iyo dhiig alxamdulillah rabbil caalamiin saxah waan saxan jiray waagi hore saxasho iskuma arag gaaska waa iga baay markaan suman inta gaab igu soo bood jiray waxa weeye kiliba la iga qaban jiray negative waa ku soo noqday dawo kalaan qaatay waan u qaadan waayay dhakhtar baan tagay hadda hor dhagax igu sheegi jiray oo Cabdishakuur la dhaho Dr. Boorme way yaqaan reer Puntland haynagu waxa weeye negative buu yiri warqadii hore way iga dhuntay markaan warqadii hore ma haysan oo kombiyuutarka igu saaray mid kale aan tagay magaalada daawo la yiraahdo wala iima sheegin xanuuna alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay ma hadda iskale ilma yar oo iga xanuunsan bahal qabeeyaan siiyay dawadaas la igu qoray sintada la yiraahdo did dambe gabadhaas bahal ugu markicin mid kale oo quman qabtay baan siiyay burkito isku daawaan siiyay taas la ii siiyay ayadana ilaahay waa ku caafiyay waxa weeye xaajigayga baan waxa weeye xanuunsanaadii kar iyo qabay burkito iyo dawadaas iyo dawa caleen la yiraahdo meesha saarnay dawooyin kamid ah buu qaatay ilaahay caafimaad buu ka siiyay buuxa hadda dawadaas dawo tijson baa la yiraahdaa marka afraad buu ka maraya hadda waa soo gartaa asagoon cudur xataa qabin balaayay dawadaas doodan ku caafimaadey buu yiraahdaa السلام عليكم magacaygu waa Faadmo Faarax Axmed waxaan ku imid meeshan bukaanimo aniga bukaanan imid runtii cidna ima wadin 3 sano ayaa waxa la ilaaha company Tianis la yiraahdo waa jooga oo lagu caafimaado dhunta leega hayay xanuunka aanu imid aanu meeshan ugu soo qastay dhuntu ahaa xanuuna badan way hayeen gaas bay hayay iyo kuwa la igu sheegaan isku ogeyn way jireen balse aanu xanuunka aanu ugu soo qastay dhuntu ahaa 3 sano wareegayay dhaqaatiir badan baan tagay wax xanuunkaas ku hayay idahana ma arag حساسية maxaan ku dhahay allergy iyo waxyaalaha naflayn baa lagu sheegi jiray aniguna waan ku qanci waayay dhuunta xanuunka iga haya ee xanuunka lagu sheegay hadaba Tianis anoo soconayaan markii dambe imid hooyaday baa ku jirtay wayla wadaag jiray waxaan dhihi jiray geedaha wadanka la wareegsan dadka ku laynayna markii dambe anoo socdaan imid haddaan socdo la baaray xanuun tira badan baa lagu sheegay aad u fara badan waa la ii qoray waxa kamid ah Jackson waxa kamid ah Singi waxa kamid ah Vitality haddaan ii muuqan waxa kamid ah libido aan hadda ii muuqan bilbal soo qaatay waan ku caafimaad alxamdulillah rabbil caalamiin markaan ku caafimaaday iskaankii baa la igu ceshay markii la igu ceshay haddana 4 nooc oo kala la igu qoray oo galdhisaad Vitality-dana waa la iga bedelay galdhisaad baa la igu daray 4 nooc baa la igu qoray haddana waan qaatay qaybta kale waan qaatay adoo alxaasil waxaan cunay 4 bilood aan hadda cunay alxamdulillah rabbil caalamiin waan ku caafimaaday neer baan kaga caafimaaday gaas baan kaga caafimaaday rabadiis